السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمانتين وان idin salaamay waxaan rabaa bal codka inaad maqlaysaan si fiican inaad maqlaysaan bal ii soo sheega Ahmed Isa salaam Allah alayk I know you very well walaalkay Ahmed Isa waan ku salaamayaa Ndufuco waan salaamayaa Dayt waan salaamayaa Djibouti waan salaamayaa all Afar people Thank you. Okay, والله مغلية. ما أنت وحنا كهاد لنا لبا أريمود أو قاعدان أو أتصفي عن أفهمي دونتان شيء كشذا دولا أنا بلهين ما قالوا بهيو. إيوه. جبت عائلة هاي نك عن سياسي هاين علمي جدا هاينين. siyaasi isku sheega dhibaatada ay leedahay taana in yar man idin sheegaya anu haddaan iska bilaabo anigu siyaasi ma yihi aqoon-yahan iskuma sheego laakiin mid baa jirta aan dadku ii diidi karin inaan qof weynahay oo intii aan soo jiray waxaan soo arkay si wanaagsan ama soo maqlay si wanaagsan aan u xafiday oon ka sheekayn karo taas ayaan cidina igu qabsan karin da'dayda iyo waayo aragnimada aan nolosha aan soo maray u leeyahay iyo dadka aan la soo dhaqmay period hadalku kooban tan iska yeelyeelka ee 25 jirka 30 jirka la garaadka waqtigii maaragtay 1991 iyo wixii ka dambeeyay ay meelahan Facebook la soo fadhiisanayaan waxa weeyaan waa arrin dambe oo dhawaan dhalatay oo aanan loo odhan karin moogtay taariikhda ama ka sheekin kartaa ama wax waayo dawixii baba sodon sano iyo wax ka yar aanu soo noqono magaalada Dirdhabe wixii ka dhacay waa la ogaa dhibaatadii ka dhacday waa la ogaa waxaa lagu ducaysanayay ilaahow maaragtay si khayr qaba ku dhamee dadna si khayr qaba ugu dhamaatay dadna si aan khayr qabin oo ay dhibsadaan bay ugu dhamaatay kuwii qaxay way dhibsadeen oo sidii doonayeen bay noqon weyday kuwii lagu soo duulayna maaragtay ilaahay si dhib yar ayuu ugu dhameeyay waa la wada degan yahay si fiican baa loo wada degan yahay laakiin 10 baa lagu kala qaatay tusaale aan soo qaadayaa weligiin ma maqasheen magaalada Hargeysa dadka degan ee u badan waa la yaqaanaa laakiin weligiin ma maqasheen magaalada Hargeysa ama Boorame ama Burco magaalooyinka waaweyn Boorama miyaad ku maqasheen tiyo leeyahay xaafid Gadabuursi miyay ku taalaa jawaabtu waa maya sababtuna maxay tahay meeshaba Gadabuursi baa iska leh Boorame 92% 8% inan la yaal nin gabadh qaba gabadh la qabo dad martiya dad baa amtar u yimiday 8% Hargeysa soo qaado xaafad isaaq la yiraahdaa miyay jirtaa jawaabtu waxa weeyaan maya maxaa looga waayay waxaba iyaga wada leh iyo wixii la daga Hargeysa maxaa ku taala xaafad leeyahay jigjiga yar maxay tilmaamaysaa arintaasi inay dadka jigjiga ka yimiday qabiilkay doonaan ha ahaadaane ay marti ku yihiin Hargeysa inagu celiya Dirdhabe marka Dirdhabe waxaad maqasheen xaafad Ciise waay baa looga waayay xaafad Gurgure xaafad Oromo xaafad Xabashi maxaa looga waayay sababtoo ah Ciisaha ayaa marti ku ah that's why farta loogu fiiqay jihooyin badan koonfur waqooyi bari galbeed wixii ka xigo oo dhan far bay ku soo fiiqeen lagu sheegayo xaafadaas Ciisa degan Ciisa xaafadaha kale markaa muxuu ku sheegaa Gendadibo Qafira maxaan ku idhaahdaa xaafadaha ku wada salaysan magacyada afka Oromada ah maxay tilmaamaysaa Ciisow waxay tilmaamaysaa dhulka inay Oromo leedahay ama Gurgure leeyahay ama ay u badan tahay dadka leh dadka afka Oromada ku hadla ama Oromo ahaado ama Soomaali Oromo bartay ha ahaado inagu celiya Hayle Silaase taariikhdiisii awraajagan ama degmadan Soomaali ahaan waxa loo oran jiray Gurgurana
garaa guraaja awraaja afromoga ma aqaano laakiin macnaheeda intaas waan garanayaa gurguro iyo wixii buur madow degan degmadeeda bay ahayd waqtigaa ciise ma jirin suldaankii ama ugaaskii gurguro ayaa ugaaska ciise oo eeshaca degan wuxuu siiyey gabadh wuu soo degay meesha waa la soo degay shaqaalihii waxaa la kordhiyey shamatafeerka ama midhir baabuur ama tareenka ninba siduu u yaqaano ayaa lasoo dejiyey xaafad ciise noqotay iskuulka alliance français bay ka faa'iidaysteen si ay markay u dhammaystaan iskuulka ay Djibouti shaqo uga helaan it's good waa dad Soomaaliyeed waxay noqotay markaa dadkii taariikhda aanan ogeyn in loo sheegto dhulka maxaa xigay markaas in haddana Hayle Silaase lala hadlay oo la yidhi waniyo annagoo Soomaaliya meeshan dadka kale naga saar waxaa la yidhaahdaa gurgurana Isa Awraja gurgurana Isa Awraja gurguro iyo ciise degmadiisii halkaas ka soo galay ciise the same time marka ay French Somaliland ay ahayd Djibouti ee loo bedelay territoire afar et Isa territoryga anfar iyo ciise markii loo bedelay iyo markii loo bedelay gurgurana Isa Awraja is the same time wax laga wadayba ciise markaasuu calankiisu kacay ha kaco gurgurona waa Soomaali ciisena waa Soomaali sidii ay ahayd ayaa waxaa lasoo gaadhay sanadadan waxaa meesha ka socday waad garanaysaan wixii ka gaadhay waad garanaysaan waxay ku dhammaatay waad garanaysaan waan idinku celinayaa markaa maxaafad ciise dirdhaba leh mise dirdhaba dadkii lahaabaa leh oo xaafad ciise marti bay ku tahay simple haddii xaafad ciise ay yeelato dirdhabe jigjiga yarna Hargeysa yeelanaysaa ciddii martida ahaydba hadday wax yeelanayso xaafadda Hargeysa ku taalle jigjiga yar la yidhaahdana Hargeysa yeelanaysaa sidaa ula socda waan ka baxaynaa tan waxaan u gelaynaa nin xalay toole aad iyo aad ugu dheeraaday oo bedelay ninkii jigjiga maan la odhan jiray inkastoo isku qabiil yihiin oo abaskuul yihiin aniguna akishaanahay abaskuul iyo akisha mar gaar bay isku haysataa marna waa isku degaan marna waa gacal marna waa isu abti laakiin aniga Cumar ahaan I'm sorry abaskuul ma dhalintee waxna kama qabo igamana qaban I'm sorry san doonaan ugu taagsanayaa sida ugu taagsadaan dadka masaakiinta ee harta sheekh degan ardayda aan waxba ogeyn hubka gacanta ku sidanin arday baasoolad wata iyo arday bam wata maanaanu arkin haddii la arkana waa dee hadday iyalka al-shabaab ay iskuullada u dhigto haddayna qoryo dhabta ku haysanin aanu garan maayo taas laakiin harta sheekha markii xabadda lala dhacayay dee arday hub wadata maan ogeyn taasna waxay tilmaamaysaa fulaynimada iyo dadnimo xumada iyo Soomaalinimada beenta ee lagu shaqaysanayo ee ninkii aad isir isu sheeganaysaan oo ilmo yar aad xabad u qoorayso waxay tilmaamaysaa inaanad ahayn Soomaali oo aanad xataa garanaynin waxa tahay hadda dariiq qabr bay tahay waxba la qarin maayo siiba abaskuul wax alla waxa tahay lama garanayo ilaa hadda inaad Soomaali tahay inaad carabta diirka madow toos uga tirsan tahay inaad absamo tahay waxa tahay la garan maayo the same xaafadda jigjiga yar Hargeysa ku taala iyo xaafad ciise dirdhaba ku taala mid la mid oo jigjiga ku taala ayaa doonaysa inay jigjiga yeelato jigjiga xaafadda kisha kuma taalo xaafad bartira kuma taalo laakiin suuqa iskuul baa ku yaala suuq sheekhash kuma yaalo qabla aan idan iyo waxaan shalay toole la sameeyay dhaaf qof kastoo reer jigjigo daadayda ilaa 40 gaadhay ilaa 30 gaadhay way garanayaan suuqa iskuul inay sartii dool xirsiya ay ku taalay maartay guriyii ka soo horjeeday oo ilma baday badaad qarbash halkaas loox lagu iibin jiray habeenkii fiidkii bay ahayd suuqa iskuul waxa lagu kala iibsadaa waa loox kaliya ha u qaadanina stock
exchange-kii maaragtay dirdhabo bahashay New York oo kale oo wax lagu kala bedeshay bacmustariya maaha taasna la socda abiskuul inay dhurwaale iyo maaragtay iyo qowr barax meel ka sokaysa ayna lahayn yaana dadka been loo sheegin yaana caruurta been jeebka loo gelinin dadka jigjigale waa la garanayaa waa dadka sida edabta u jooga aanan sheeganin ninkii shalay sheeganaya lahaa jigjiga anaa iskale uu maxamed dheere afka ku ballaadhinayay ninka gabadhu adeerka yahay gacanta ka qaniinay ee taatuuga ku sameeyey een weligiidaan ka go-aynin ilaa gabadhaasi ay teeda noqoto la aaso ninkaas waa kii sheeganaya la jigjiga anaa la lahaaye shalay xabashi markii ay boodbooday jidadka xidhay xagay ka dhaceen abaskuul suuqa abaskuul xaguu ka dhacay ma qabar bayax bay u qaxeen ma guryahay hoosta ka galeen waxaad sheeganaysa waa la muujiyaa markii balaayo ka dhacdo meesha jid waa qodhan waraarday inaas la yaabtaan ba fiican waana kasbayna uga aamuseen jaarsa iyo akishe iyo cid kasta oo meesha la degan iyagoo tusaya mataqaanaa mid inaad waxba aanad ku ahayn laakiinse marka la isu wada tago wax la yahay ayaa la tusayey nimanka jid waaqay annaga la yidhaahda meesha zero ninka maxamed dheere la yidhaahda baan haddana maaragtay ka yara sheekaynaynaa taariikhdiisa waa ninka siyaasiga isku sheegay mawduucayga ayay hore ayay ku jirtay markaan idinla hadlayay xalay nairobi buu kasoo hadlayay isagoo la eegtay wakti ay dadkan maraykanka ee wax garanaya ay hurdaan oo ahayd 11 12 meelahaas ayuu hadlayay isagoo hadlaya ayaan aniga kaga seexday wuxuu eedeynayay Mustafa Cagjar uu lahaa ninka la socda macnii ana kaga wanaagsan inaan la taliyo muxuu ula joogaa iyo wax buu ka hadlayay marka waxa isweydiin leh goormu fasalka saddexaad hiigsaday ninka digriga haysta ama dambiilaha ama yuna haysa aanin qofka hadduu digrii haysto wixii uu digriga ku soo qaatay iyo wixii majorkiisu ahaa ama minorkiisu ahaa ama wuxuu dibadda ka bartay ilan cilmigiiba yaa u indha furee ayuu madaxtooyada la tegi karaa jeebka qabyaalada kala soo baxo digriha kala soo baxo saas ku tegi karaa aduu haddana digrii haynin ka saddexaad kuugu dambeysay dhagax loo adeerkaay uu eediyadii ku keenay Philadelphia maxaayad yuhuudi uu leeyahay aad ka shaqaynaysay oo gabadha ubax maxamed xasan la yidhaahdo ama ubax maxamed shaliila eed kala tagteen ee 7 caruurta kuule meesha aad isku barateen waa Philadelphia aad u sheegatay ogaadeen 2 caruura markay marayso ayaan u sheegay inaanad ogaadeen ahaynood abaskuul tahay laakiin la isku yidhaahdo afsame inaanad isku kalsoonayn oo aad ku soo daaqday in muddo ah kaarka ogaadeen ayaan dadka u sheegayaa way maqlaysaa ubax maxamed xasan nasra maqlaysa hooyadeed Shamso Cusmaan baa maqlaysa all reerka oo dhan waxay degan yihiin Minneapolis sidaas adiguba u degan tahay id kolba xaafad u seexato dadka sababta aad ugu sheegi weyday adigoo leh Axmed Shide anaa idinka jecel oo gacal baan nahay waad ahaan jirteen hadda ma tihiin usahaaga iyo bacdaada waa tii dibadda la dhigay markii lagaa kari waayey ilmaha kaa xanuunsanaya ee mataanka ah lacagta yar ee lagu qaato ee ay maaragtay haddii meel hoose tima ku baxaana hooyadii ka xiirayso haddii uu dhinac daalana dhinac kale ay u rogayso ay gadh ka xiirayso ee nadaafadiisa ka shaqaynayso ee sariirta dusheeda jidhka ugu dhaqayso ayaa damacday lacagta lagu qaato inaad qaadato ood ku qayisho oonad habeen keliya usoo jeedin waa ilmahaagii noocaasa tahay markaasaad doonaysaa in aad ummad dhan oo la yidhaahdo Soomaalida Ethiopia aad hoggaan u qabato islama yaabaysid miya ma akhraan joognaa akhraan afka laga hadlinta online oo lagu jiraa mid walba kitaabkiisa xisaabta gacanta laga saaraa ma akhraan joognaa haddaan hadlino noocaga aan ummadda laga qabanin gabadha ubax markaad guursanaysay inan bay kuula timiday ama iyadoo inan haysataad isguursateen ceebtaada ilmaha suun baa loo qaataa xitaa waa maaragtay la garaaca hadday idib darro samaynayso qof Soomaaliyeed baa tahay hooyadeed baad qabtay waa ilmahaagii hadday idib darro samaynayso gabadha agoona bay ahayd oo aabaheed si xaq darro lagu dilay Soomaaliya
soo maad garan oo ay kasoo kabmi weyday oo iyadoo weyn loo sheegay aabeed sidii lagu dilay iyo ciddii dishay ayaad gacan ka qaniintay qaninyadu waa taatu ma ogid miya taatu abaskuul weeyaan ilkihii baa ku yaala way muuqataa waa gabadh light skin ah qofkay saa u tuso waa la garanayaa inay ilka yihiin unbaa la garanayaa laakiin hadday ku tiraahdo waa maxamed dheere ilkihiisii ceebtaa ka waran oo naxari kaa badbaadinay lagugu xidhi lahaa lagugu dacweyn lahaa oo child abuse lagugu qaadi lahaa soo maad garan oo wanjalkii Ethiopia dhinac kale loo rogi lahaa waxaasoo dhan ayay Akisho iyo reer maxamed xasan ka gaabsadeen oo ay yidhaahdeen caruurtaas aabahood annagu jeel ma gelinayno inantoodii baa la samay sendiyaga loo diray dadeed ilaa inta cadhadu ka soo baxayso and still he is talking weli wuu hadlayaa waxyaalaha cabdiwaasac mataan waad arkaysaa inaan live ku jiray waxaad ii soo wacaysaa oo edabdarra baan malaynayaa markaa maxamed dheere siyaasaddan iyo dulmidiidkan anu ma garanayo ninka dulmidiida ah habeen dhaweyd buu ismuujiyey si fiican u hadlay dadka moodaya dulmidiid inaan anigu qabiil iyo jidwaaq ahaan ku eriya war dadkay soo wacayaniyo idinka idin taallaa ma qabanayo inaga daayo dee ciyaarta inaga dhaafa annagii baa ciyaar kale ku jirno oo dad la looltamayna ciyaar kalaa dhinac kale ka wadan dulmidiid ninka ugu aqli fiican habeen dhaweyd buu ismuujiyey waxa weeyaan Bashiir Garaad waxa uu hoosta ku haysto calooshiisa ku haysto nin raga isaga u gaar tahay waa u sir laakiin markuu masraxa soo fadhiistay ay doodayeen Dr. Saciid iyo Hirmooga ay doodayeen sida uu hadlay waa si Soomaalida deeqi karta period hadalku kooban hadaanan faahfaahin gelin ninkii faahfaahin doonaya doodii ha dhageysto mowqifka uu taagnaa Bashiir Garaad xisbi baan u bedelnay buu yidhi dulmiga aanu diidanayn waa ka Etoobiyada sare buu yidhi moogtahay Soomaalida dulmiga ay ku hayso oo haddana marka tii Soomaalida la eegana dulmi kale uu ka jiro kii hore waanu dhaafinay meesha kii ayaa horenu dhaafinay ku lamid ayaa meesha ka socda buu yidhi isagoo u jeeda markaa hal qabiil oo doonaya qabaa'ilka Soomaaliyeed oo dhan inuu maamulo waana ogaadeen wuuna la dhashay aan Soomaalinimo aynu qaadano aynu mid noqono ayuu nuxurkiisu ku salaysnaa Bashiir Garaad waan u hambaliyeynayaa la xisbi ma ihi laakiin waa xisbi tala wadaag la yeelan karo meel looga soo wada jeedsan karo kuwa dulmiga wada good job cumar ahaana weliga aniga xisbiga aan ahay ama xisbiyada marka la sameeyo kan ku biirayo waxay ku xidhan tahay nooca ay u hadlaan iyo qodobada ay soo dhigtaan ee wadanka ku horumarinayaan wixii ikaafiya ayaan maaragtay qaadanayaa inkasta oo marka wax la doonayo nin waliba af macaan iyo qodobo macaan uu soo dhigo haddana waxaan qaadanayaa wixii maaragtay ummadda usoo joogsato kuwa ugu tirada badanna kuma biiraayo kuwa ugu liitana kama hadhaayo haddii ay maaragtay qodobkooda fiican yahay kuwa ugu liita ugu tira yar haddii ay qodobo fiican meesha la yimaadeen oo weliba aad u adagoo sida lagu maraa sanadadana ay adag tahay waan ku nasiibsanayaa I struggle with them marka intaa yar baan sheegaynay ninkaa taatuuga cusub doonaya ninkii taatuu ilka doonaya maxamed dheer uu tagayaa marbuu ku qaniinayaa for the rest of your life gacantaada way ka muuqanaysa xataa dhabanka uu kaa qaniinaya haddaad doonaysa taasna waa taas marka dadka doonaya inay maaragtay ummad meesha ka caayaan Axmed Shide aanaan aqoon baba iyaaba qabiilna lagu jeclaysiiyeyba ma naqaano isma naqaano sidii loo caayay baba nala jeclaysiiyeyba ka waran oon difaac halkaa ula soo fadhinaa war markaad Axmed Shide caayayso inaad aqoon isku lahayn waxba isku lahayn waxay kaaga caddahay qabyaalad wax la yiraahdo maxaa markaa aniga cumar ahaan ii diidaya inaan ana jeebka kala soo baxo ani taydu jeebkay ku jirtaa adiga taada garan baad ka tolatay ka waran oo waad xidhan tahay qofkaad garan marayso kulli wuu garanayaa facebookii baad ku qoratay wadani ogaadeen hebel ogaadeeniya maxay kan
ku kale afsame ku kale jidwaaqiya wax oo dhan baad ku qoratay ana cumar cismaan baa ku qoran xitaa akisho anaaba idiin sheegayba muddaad wareersanayn lahaydeen oo ninkan muxuu yahay aad odhan lahaydeen anaaba idiin jilciyeyba soomaalida waxay ku odhanaysaa nin magaaladeed ka timid iyagoo ujeedo qolomaa tahay shorti kadka qaata baan ku idhaha magaalada jigjiga iyo waxaan iska dhaafa akishaan ahay meeshaad ku socotaan ogahay sheekada inoo wad waa sidii oo kale dhammaan waan idin wada salaamay kuwa imika soo wada qoraya waan ku salaamay dhammaantiin waan idin wada salaamay taasna waa taas maxaa kaloo hadhay rabshadii jigjiga oo iska dhammaatay iyay ku caddaatay reer aanan afka soo marinaynin ayay ku caddaatay haddii dawladdu wax ka qabanaysa haddii kale maxay isku soo hagaajiyey rabshada jigjiga iyo reer hurdo oo la qaaday oo jaarsan la yidhaahdo hadda gaadma caadiya un dumar iyo caruur iyo rag midna loo eegin jawaabtiina waa laga sugayaa jaarso allaha sahla baan leeyahay jaarso dulqaata baan leeyahay orda oo soo argoorsada anu ma odhanayo waayo argoosku dhibta uu keeno ayaa waxay tahay kuwa soo duulayaana waxbaa ka dhiman kuwa lagu duulayna waxbaa ka dhimanaya markaa garoonkan diida waaleed iyo tulli guuleed ee labadii qabiile inay islaayo doonayaanba ay isla imaanayaan maxay tahay ciise markuu doonayo inuu maaragtay ummad la dagaalamo wuxuu doonayaa inuu daarood soo noqdo uu duuda waaleed ka soo galo dagaal ninkii jaarso doonaya inuu taageero jaarso taageerka ma aha waa ninka ku socda inuu daarood ahaan la dagaalamo ayaa isna xagga jaarso imaanaya marka waxay noqdeen garoonkii Chelsea lahayd ee ay ku martigelinaysay ciyaartooyada kale ee garoomadooda dhismo ku socdaan ayay duuda waaleed noqotay miya come on guys mooyaala way dhamaatay daraba way dhamaatay duuda waaleed iyo tulguuleed maxay u dhamaan lahayd waay mashruucan dheera ninkan tigreega qaatay ee lacagtu ka dhamaan lahayd maxay tahay badil isugu noqda ninkii ilma ka dhintay ee jaarsa iyo kii gari ee ilma ka dhintay miduu abtiyahay dhintay miduu adeeryahay dhintay miduu awowyahay dhintay shirka lama keenayo 4 tuug oo garaada isku sheegaysa oo lacag qaadataba inta meel fadhiistanaysa soo sawirama leeyahay garigiyo jaarsada way heshiiyeen xaggee ka heshiiyeen maalintaa jaadka la idin qaadan bad ka hadasheen xataa ma sheegi kartaan 10 qof oo jaarsa ka dhimatay magacyadooda saddexan iyo 10 qof oo gariga ka dhintay magacyadooda saddexan ma haysaan markaas aad doonaysaan nabad baanu keenay dadku ka dhinteen compensation maxaad siiseen milyanis lacag baad qaadataan ood ku qayishaan oo maalin dhinaca karbaad wuxuu sheegaysaan maalin federaalkaad wuxuu sheegaysaan maalin waxaad u sheegaysaan kuwii watay sheekada daarodismka watay maxaad ka haysaan markaa nothing lacagaanaad cunaysaan dadka masaakiinta caruurta ay kaga dhimatay inaad siisaan bay laqaatay markaas qofku garanayaa heshiisku inuu daacad ahaa marka loo tago oday 3 wiil ka dhinteen oo gabdhihiisu iminka ay irfida haystaan oo labadii dibi wax ku qodayaan inamadii baa ka dhamaaday gabadh ayaa haysata labadii dibi irfidii lagu qodeeyay beeraha haysata ninka gablan baa laga dhigay isna wuu gaboobay gabdhihiisii bay mid qodaysaa gabadha wax qodaysa yaa qaba nin gari yaa qaba meeshuu ka qaxay caruurun baa ka dhaxaysa gabadhii mana qabo mana furin waxaasoo dhan baad xeerin weydeen odayaasha cumaamada waaweyn lee jigjiga fadhiya ee tuugta kan odayaasha leeyahay ool suldaanoo dhan baan sheegayaa walaa ku agsho walaa ku bartire walaa ku jidwaaq walaa ku ogaade walaa kulli adduunyadu sidii hore maaha miidiyagaa la wada ogyahay waxa ka socda markaad meesha soo fadhiisanayso oday isku sheegow deegaankoo dhan odayaasheeda meel ha la isugu yeedho ha la dhaariyo kitaab gacanta ha loo saaro dadka ay taladu ka go'do ee jaarsana ha la keeno maaha 4 jigjiga kula joogtadooda qayshaan maaha oo halkaa ka soo hadasha maalin kasta waxaana leeyahay garaad maxay baa la leeyahay wargoormaa la caleema saaray annagaa ogeynba dib isugu noqda joognimada dadka ka daaya
markaas waan idinka tegayaa intaasaan idiin sheegayey waa run tuugta waa la afuufayaa garaadada tuugta waa la afuufayaa markaad qeyl banaysanayso waxaa fiican mataqaanaa dugsi quraan haddaad macallin ka tahay ood ardayda inay kaa baqataa doonayso ilmahaaguna dhiganayo horta ilmahaagaa la karbaashaa ardaydu markaasaa waxay ku qaadanaysaa ilmihii uu dhalay buu karbaashayaa idinka maxaad u malaynaysaan si fiican bay wax u akhrisanayaan markaas cumar cusmaan oo suldaan muxiidiin ka tegi waayey ma waxay filayaan garaad iyo ficiis iyo boqorka aanaan waxba isku hayn inaan ka aamuso ma taasay filayaan waa been bay isu sheegeen tuugtu isweydiiyown cumar cusmaan markuu ka hadhi waayey suldaan muxiidiin ninka kulmiye aad u taqaanana aanu kala kaxeeyo u aqaano miyuu ka hadhayaa kama hadhayo dee ninkaas magaca lagu khaldamo kulmiye maaha waa kala erye kala kaxeeya weyaan muxuu kulminayaa nothing hadduu dee ethoobiyan bir miyaa taraaqam koone inaayalen inuu lacag ururiyo soo ururinaya lacag waa halkeeda saasaan idinkaga tegayaa hadda gurigaygii baan joogaa gaadhigii maaha wadinkaa caawana waan soo gelayaa anigoo mawduucyo kale ka sugaya jigjiga iyo inta loo xidhay balaayadii ka dhacday dhexda loo galay nimankii koojaar tegay qaysaska ahaa ee dhexda loo galay cidda u gashana ay doonaysay dagaal diimeed inay bilaabaan wayna socon weyday tii darabaa socon weyday tii jigjigaa socon weyday xaggee kaleed ku fiirinaysaa markaa inay tuugnimadiinu ayna meelna gaadhin waxa lagu garanayaa oo xitaa diinta islaamka aynaad ku dagaalamaynin waxaa caddaynaysaa xayla silaasa masaajid dhan oo harar ku yaala oo reer harar oo dhani garanayaan all other people ay garanayaan dadka hereriyiinta garanayaan dadka islaamka garanayaan masaajid ayaa laga bedelay masaajidnimadii oo kaniisad loo bedelay oo ilaa imanka kaniisad ah weligaa kamaad hadlin markaasaa ay iyagu dhisteen baad tuurtuuraysaa ma taadii laga bedeshay tuurtuursid ood albaabada xididooda wax walba way isbedeleen xayla silaasa wuu tegey mangisti wuu tegey ina ilay wuu tegey everybody wuu tegey qolo walba xaqeedii ha loo celiyo ay ugu horeyso masaajidkaygii baan rabnaa kunka sano jiray ee ilaa afrika looga iman jiray lagu cibaadaysan jiray ee wax lagu baran jiray ee kutubta qur-aanka gacanta lagu qoray meesha ay ooli jireen kamaad hadlin markaasaad kaniisadii yaro ku taala dardhaba iyo qaysas yaroo gaari ku jira baad muraayadaha ka jabinaysaa oo koojaar ka yimiday tuug beenaale markaas haddana qaxaysaa ood buurtii sinta fuulaysaa adugu waa naqaanaa meeshaad ka soo dhaadhacday iyo meeshaad maraysaba annagaa ku dhuuman jirnay oo buur jidadkeedu ay adag tahay sida ay baabuurna u fuulo ninaan garanayna u fuulo oo halkaa inta laga fuulo sinta aad ka dhaadhici karto haddaad xariif tahay xagga iyo meeshii orda la odhan jiray annagaa WSLFT joogi jirna halkaasaad ka soo dhaadhacaysaa waxbaad samaynaysaa xaggii orda ayaa tegaysaa yaxaadow iyo dhankaas xariif galbeed warweydinkaa waan idinka tegayaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waa inoo mar kale iyo focuska saaran minneapolis iyo siyaasiyiinta caruurta qaniinta asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu